maanta halkan nigu haya shan qodob. Shanta qodob ee maanta halkan aan nigu hayo waxay ka kooban yihiin saaxiibada shantan calaamadood ka mid ah haddii aad la kulantid ama haddii aad aragtid lama saaxiibo. Shantan aynu soo sheegi doono halkan ku soo sheegi doono waxay ka kooban yihiin waa shan qodob oo muhiim ah. Shanta qodob ee muhiimkayna waxay ina dul istaajin kartaa calaamadaha dadka dhaqanka caynka oo kala leh sidii looga fogaan lahaa ama sidii looga taxadiri lahaa ama sidii la iskaga ilaalin lahaa. Shanta qodob ee maanta halkan aan ku soo qaateen ku qaada dhigi doono waa shan qodob oo nolosheena mustaqbalkeena naafacaysa waxtarna inoo leh. Marka shanta qodob ee halkan maanta ku sheegayo waxay ka kooban yihiin waa saaxiibada dhaqamada noocan oo kala leh inaad ka fogaatid oo ka dheeraatid oo ka taxadartid waxyaabaha lagaga baahan yahay inaad samaysid. Shanta qodobi waxay xambaarsan yihiin nuxurro kala duwan iyo odhaahyo kala badan oo ina dul istaajin kara waxyaabaha ina anfacaya. Bal aan ku sii daayo shanta qodob. Shantan qodobi qof bakhayl ah lama saaxiibo lama rafiiqay ka dhigan tahay. Qof khayn ah qofka khaynkii adna kuma anfacayo cid kalena ma anfacayo. Qofka tuuga ama faradhaafka leh markaan fasirno faradhaafka leh qofka xaaraanta jecel mar walba qofku haddii uu xaaraan jecel yahay mar walba ilaahay uu ka fogaaday dadnimada uu ka tegay. Qofka hinaasaha badan qofku hadduu hinaasa badan yahay faa'iido ma leh yaan odhan lahaa. Marka shanta qodobi waa shan qodob oo muhiim ah oo ina anfacaysa yaan maanta halkan nigu soo diyaariyay. Barnaamij kale oo barnaamijkan lamid ah intaan idiin soo diyaarin doono sidaa iyo ammaano Allah ayaan iga tagayaa. Intiina ku cusub YouTube-kaygana waa inaad subscribe saartaan, share-tana aad badisaan, comment-igana aad igu dhiirigelisaan yaan idin odhan lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.